wasiirka cadaaladda Soomaaliland Xuseen Axmed Caydiid ayaa saaka dhagax dhigay dhismaha xabsiga cusub ee magaalada Burco. Munaasabad ballaaran oo loo sameeyay dhagax dhigga jeelka cusub ee Burco waxaa goobjoog ka ahaa mas'uuliyiinta ciidanka asluubta ee gobolka Togdheer, maamulka gobolka ka degmada, mas'uuliyiin iyo marti sharaf kala duwan. Mas'uuliyiintii kala duwan ee madasha ka hadlay waxay ka warbixiyeen baahida loo qabay dhismaha xabsiga cusub ee magaalada Burco. maadaama ay yiraahdeen sanadba sanadka ka dambeeya ay sii kordhayaan dadka sameeya faldambiyeedyada kala duwan ee maxkamadda xukunto. Taliyaha ciidanka asluubta ee gobolka Togdheer gaashaan la dhexe Jaamac Baadi ayaa ka warbixiyay xilligii la dhisay xabsiga weyn ee Burco iyo baahida ay u qabeen xabsi cusub. in badan baynu sugaynay haddii aanu nahay ciidanka asluubta iyo dhammaan reer Burcaba in loo dhiso jeelka Burco kaasoo xilligii hore ee la dhisay waxa waqti fog oo marka la sheegayo 1944 ayaa dhismaha imika taagan ee aynu ku shaqeynaa ayuu dhismayba ayaan warbixinta ku haynaa. ilaahay ma hadii weeye maanta hadii uu suura galo inoo suura galay oo ay inoo suura galisay dawladdeena maanta joogta. wasiirka cadaaladda Soomaaliland Xuseen Axmed Caydiid ayaa isaguna geestiisa munaasabadan ka hadlay. farxad bay inoo tahay inaan isugu nimaadno dhagax dhigga munaasabadan dhagax dhigga dhismaha xabsiga cusub ee gobolka Togdheer. xabsiga gobolka Togdheer ee cusub intii wuxuu ahaa xabsi baahi weyn uu qabo gobolka iyo dhammaan dalkuba. waa la socotaano hadduu meel looga dhismo xabsi dhexe central prison waxa loo yaqaanaa halka uu ka dhisan yahay qori kama faa'iideysatay waxa looga faa'iideeyaa dalka oo dhan buu faa'iido u yahay. waxa ay hoy u noqonayaa dad marka hore sharciga khilaafay oo jabiyay oo haddana wixii lagu xukumay laga yaabo intooda badan inay raalli ku ahayn. maayarka degmada Burco Maxamed Muraad iyo gudoomiyaha gobolka Togdheer Maxamed Muuse Diiriye oo iyaguna kamid ahaa mas'uuliyiintii ka hadlay dhagax dhigan waxay mahadnaq ballaaran u soo jeediyeen xukuumadda madaxweyne Axmed Maxamed Maxamuud Siilaayo iyagoo ka warbixiyay marxaladihii kala duwanaa ee ay u soo mareen helitaanka dhismaha cusub ee xabsiga Burco. waa Bashiir Ibraahin, Universal TV, Burco.